نبي صلى الله عليه وسلم وكيلها من عال جاريتين حتى تبلغا أنا وهو كهاتين في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام ninka laba gabdhood ilaahay uu ku deeqay laba gabdhood u dhalatay ee koriyay ee kursiintooda wanaajiyay ilaa ay ka qaan gaadhaan buu nabigu yidhi aniga ninka jannada sida labada farood isku yihiin farda murdisada iyo fardhaxada la yiraahdo sida iskugu xigaan ayaan aniga isagu jannada isku nahay buu rasuulku yidhi afar gabdhood ninkay u dhalatay ee koriyay ee kursiintooda wanaajiyay tarbiyadeeyayna ee u guuriyay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam naartay gaashaan uga noqdaa buu rasuulku yidhi marka saxaabada nin kamid ah yidhi ninka saddex gabdhood ilaahay siiyeyna saddexduna waa la mid buu nabigu yidhi ninka laba ilaahay uu siiyeyna labaduna waa la mid buu nabigu yidhi ninka gabadh ilaahay uu siiyeyna miduna waa la mid buu rasuulku yidhi intaa rag lama sheegin ogow haweenku nabigu sheegaya dadkana nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ciduu ugu jeclaa haweenay bay ahayd